السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي قالية أصحابتي قالية أسيتين في عنتين من نبض قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا مالكستو أدونك جوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا خير إيه فرحة لسو دواذا وماموانا إيه مركلة إيه channel كان دمرك الصوماليات عرب كان وحو برتا إنا دهنا channel كان ماموانا إيه صاحبة قالية haye soo dhawaada channel badanaa laga helaa laakiin waqtiga ayaa noo saamaxaynin inaan fariisano hadda halkaanaan fadhinaa soo dhawaada welcome isku soo noqodka loo wanaagsan meeshaan meel dhiirigelin waaye sida aad aniga iiga barataan iyo waxaan qabtaba waa dhiirigelin waxaan qabana kheyr allah ka dhigo marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada marmar lagjarada way dheer yihiin saacad ku dhawaad iyo waxay noqotaba waa hadba saan waqti u helo marka marmarna waa warkoo kooban marka warku hadduu kugu koobnaado inoo sabar lagjarada waa soo gelin doonaa insha allah subscribe saaro insha allah live aan soo geli doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo si markaas aad iila socoto xilliga aan liveka u fadhiyo su-aalahana aad i weydiiso insha allah intii kolley markaa kugu taagan aniguna aan wax ka aqaano ka raali ahaado su-aalaha qaarkood maaragtay waa inaan si kale ku hago waayo waxba kama aqaano waa inaan ku dhaho arrinkaa wax go-aana maaragtay ma kula gaari karo ama ma kugu siboodi karo ama ka raali oo waxyaabo badan oon diidaa jirto oon iska duwo maadaama waxaas ay khatar keeni karaan diiniyan iyo dan adduunyo daraaddeedba marka waxyaabaha qaar aqoon uma lihi haddaan u leeyahayna waxaaba laga yaabaa inaan ka baqdo inaan arrimaha galo marka dad iga khibrad roon in lagu tilmaamo oo lagu yiraahdo ka doono culummada iyo ka doono dhaqaatiirta ay noqonaysaa laakiin waxyaabaha qaarkood oo nolol maalmeedkeena ah in lagaa dhiirageliyo ama inaan iska dhiiragelino waa wax wanaagsan maadaama anigu aan kaba shaqeeyaba xagga dhiiragelinta allahna dhowro halkan fadhino waa channelka dumarka Soomaaliyeed ii soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada waxaan ka sheekeysanaynaa howlaha dumarka soo food saaro hadday noqoto caafimaad ahaan iyo hadday noqoto dabeecad ahaan iyo dan ahaan iyo waxyaabo badan oo gabdhuhu ay ka dhawaajiyeen inay ku dhiban yihiin intii aan ka naqaano marka Soomaali mahmaahda aadaan u mahmaah jeclahay mahmaahda qaarkood waxay dhahaan badda meesha ka cabtid waa dhanaan gabaro meelay joogtaba waxbay ka cabanaysaa marka gabar hadday istiraado waayo gabdhaha anigu meel kasta igala soo xiriiraan markaas waxay dhahaan oo gabdhaha Afrika joogo problemkooda ciduma danayso dadka Yurub jooga ka waran problemkooda cidu u garaabaynin bal ka waran lile adaaba Yurub joogo adaaba Mareykan ka tagay adaaba Carabaha tagay adaaba Afrikada kala galay adaaba marka gabadha gudaha Soomaaliya ku jirto hadday tiraado ka waran aniga haddaan meel kale ku noolaan lahaa saan waa dhaami lahaa ilaahay baa og soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada laakiin anigu sidaan qabo badda meesha ka cabtid waa dhanaan ama qurbaha joog ama meel kale joog meeqa qurbaha joogto timaha iska rifeyso meeqa qurbaha joogto oo ciduba u garaabeen oo loo maleeyo inay daruuraha dhexdooda inay daaro ku leedahay just because Europe joogta waxa lagu maleeynaa sheekadaadu ay wanaagsan tahay allahna wanaajiyo meel kasto adduunka joogno soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada gabadhan waxay tiri maama muddo dheeraan saaxiib kula ahaa waxa ii muuqato bulshada Soomaaliyeed keerka dumarka inuu ku yaryahay maxay kula tahay horta adduunyada dhan waxa yaala wax la yiraahdo nin walbo nafta rag iyo dumarba waa marka keer gooni oo dumarka la siinaayo oo koolkoolis ah annaga welina ma soo gaarin yaas dumarka waa la xushmeeyaa waa la ogaadaa waa la dhaqaaleeyaa howlo badanaa ku soo fooraaro in dumarka aana lagula xadgudbin ama lagula dhaqmin laakiin in bulshadoo ururtay dumarka gaar u ogaato welina ma soo gaarin ama dibad joog ama dalkii joog taas ogow waayo dumarada kale markaan fiirino wax badanaa loo diyaariyo oo wax qabad ah inay shaqaysan karaan inay kambani raacan karaan inay caafimaadkooda ogaan karaan inay hormoonkooda ogaan karaan inay quruxdooda ogaan karaan inay ragga ka cimri degdegi og yihiin oo ciyow ay cimri baabi'iyaan ama xilliga fursadda dhalmada ay ciyow dumarka ka fariisato inay dumarku dakhli badan xataa soo gelin oo wajiska xagga shaqada waxaa laga yaabaa hal kambani inay laba qofood u shaqayso qofna uu nin raga yahay qofna qof dumara uu yahay oo ninka ragga ka lacag badan yahay laakiin iyaduna ay la howl mid tahay oo inan ka howl yarayn saasay uga lacag yar tahay same hours same job iyada saa ka lacag badan marka xaq ma aha
waxyaabaha qaarkood oo hadda dunida dhanaa ma aragtay ka fooljigan hadday isku shaqo qabanayaan then waa inay isku wax sameeyaan hadda waxbarashadoo kale haddii la galo waxbarasho diini iyo maadaba ragga iyo dumarkaba in isku si wax loo baro waa maaha in gabadha la dhaho naa orod adiga weelka noo dhaq gabaraha tahay berrin inaa iska kaakaxaysanaye oo gabadhii waxbarashadeedii la dinaay gareeyo diini iyo maadaba maaha waayo beritoole waxay noqon doonta ilaahay baa og what if ayna calaf dhanba helin maxay ku shaqaysani qofka dumare looma diidin inuu wax shaqaysto inuu wax barto inuu maarta nolol samaysto looma diidin diiniyan xataa ilaahay muu dhihin xaaraan waa gabadhu inay soo shaqayso lama diidin marka qofka inuu farxo inuu kalsooni helo inuu shaqaysto inuu aqoon lahaado inuu dantiisa ogaado waa muhiim ilaa qofku waa noole haddaad wax walba ka dinaay garayso oo wax waxtar la aad u diido qofka maskixiin waxaa taa isdardari karaa way dadka qoomameynayo dadka ooyayo dadka habaartamaayo dadka stresska dareemay dadka saboolnimada gaajo waxay liqaan waayey waxaasoo dhan waa xagga aqoon la-aanta iyo garab qabasho la-aanta marka waxaa arkaysaa maamo soomaaliyeed oon waxba haysanin iyo gabar lamida iyada da'deeda oo isku yeer ay dhasheen oo kambani maaragtay hogaamiye u ah oo maanta dakhligeedu sanadkii ku xisaabtamaysa milyan iyo ka badan inay shaqaysato aadna muhiim ugu ah maaragtay horseedka kambanigaas la-aanteed waxawaa kambaniga foundationka ka dhumi lahaa marka waa laba gabdhood oo isku da ah waxaa laga yaaba inay 60 jir wada jiraan 70 jir jiraan meesha adiga 70 jirkaagana dhaguhu daciifeen indhuhu finish noqdeen korkeedii dhammaa isku daatay ul qaadanaysa maamo ay ka dhammaatay noqotay oo tukubayso gabadha kalene waxay u shaqaynaysaa like 35 jir camal her mind is fresh her body is fresh iyada dhan waxay qabanaysaa waa maasha allah rag iyo dumar ay saa u maamushaa marka qofka looma diido opportunity-ga ama jaaniska ama fursadan wuxuu kasoo bilowmaa xagga iskuulka iyo tacliinta diini iyo maadaba meel hoosuu kasoo bilowmaa marka qofka markii loo dhiso qalbiga sida diiniyan qofka qur-aanka uu wax ka barto ilaahay wuxuu na faray wax ka barto oo aan laga dinaan garaynin waa qaladaad badan nolosha xataa waa iska qaban karaa shaydaanku iska naari karaa aqoon uu leeyahay diiniyan uu baqanayo aakhiradiisa uu baqanayo markuunan aakhiradiiba ogeyn waxba la baranin qofkii wuxuu doono iskaga dhacaa hadhowna qofkii kugu hor silacsan hadhowna maxaad u silcadeed qofkii leedahay marka sometimes meel hore ahayd waana abuurisaa ka horreysay Soomaali tiri meel hore ahayd in laga soo qabto marka allaha noo kaalmeeyo dhammaan yes way jirtaa Soomaali inaynan u ogoleyn gabar inay wax qabato meeshay gabaru wax ku qabato nina hoos imaanayo dhahayo maxaa waay gabdhihi naga hormaraya dad adigu haddaad wax qabsanaysa yaa kuu diiday haddaad wax baranaysa yaa kuu diiday haddaad adigu iga sii horumarayso yaa kuu diiday waa maya gabdhaha dhan waa in madaxa laga saaro lugta oo hoos loo celiyo badidooda ragga siday qabaan amaba dumarka kale dadkii dhan hoos isku wada riixaan qof hadduu dhaho waxaasaan damacsanahay waa loo wada dudaa waxaa la leeyahay ha seed ku gaarta horteen seed ku fikirtay yaa kula wado yaa kale oo arrinkan ku jiro waa qofka dhan waa booda lama ongolo marka gabdho badan waxaa jira xataa fikradahooda la baqdo wax lala baqdana way tahay hadaanaba cidu ku garab qabanayn oo maasha allah inta lagu yiraahdo adigana hore laguu sii dhiso dadkaba hala wada dhiso aynan ahayn oo hala isdudumiye ay tahay waa inaad la baqataa seed yeeli okay gabadhan kale waxay tiri maama waa ku salaamay salaanka bacdi waxaan rabaa inaan kula sheergareeyo fikradeeda sida ila tahay dadka Soomaaliyeed xanuunka dhimirka ma ka baqdaan mise waa ka xishoodaan anigu waan yaabay labadaba dhinacba lama sheego qofku hadduu dhimirka ka jiran yahay qofna ma dhihi karo sibaan dareemaa iyo sibaan ahay iyo sibaan beri soo ahaaday qofka wuu isi sii caburiyaa weligiisba ma nafisi kare maxay kula tahay that is so true qof Soomaaliyeed oo xanuunka dhimirka sheeganaya ma jiro xanuunka dhimirkana waxaa keenay fikradda qofka kale ka fikrad badan yahay wuu dawaqi karaa qofkan waxbaba ogeyn oo muhiimaha kale ogeyn oo aan fikirin oo aan wax isweydiin dama dawaqo xoolo guud la qofka wuxuu dhaama mala bilig dabaylaha wato waxba kuma taraxata qofkan diiqanoonayo ee stresska dareemay ee indhaha biyaha ka wado waa qof karti leh waa qof wax fahmay baahida fahmay daryeel la'aanta fahmay aqoon la'aanta fahmay dayaca fahmay wax aanan decision wanaagsan ahayn lagu garab haayo fahme ee diiqadooda ee ka diiray marka
dadkaas diiraaya ee ilaahay garashada siiyey garaadka siiyana ma rabno waxaan leenahay oo distress waay qofkii distresska waxaan uga sii dhigna cilad dadka kale waa la nafisiiyaa waxaa la siiyaa novel waxaa la siiyaa notebook waxaa la siiyaa wax la yiraahdo soo qor article ah qofkaas wuu nafisaa waxbuu qoraa wuu fikiraa waxaaba laga yaabaa dadka qaarkood ee buugaagta qoray ee buugga ay qoreen markii la gadayna overnight oo qofkii milyaneer ku noqday fikradihii uu la burqanayo qoraal ahaan ku shubay adoon caytaminoona wax qalada sameynin siday kula tahay dadka qaar markii la aqriyo aqligooda asbuug ahaan uu noo daabacay markii la aqriyo waxaaba laga yaabaa in laga cashir qaato laga cashir qaato dadka qaarkood maxaa loo shiriyaa magaalada oo town hall loogu sameeyey town hallka waxaa loogu sameeyey oo loo shirinayaa ama event hadday noqoto diiniyan gatherinka hadday noqoto caadi hadalka lectureka iyo eventka waxaa dadka loo shiriyaa in aqligooda la ogaado mararka qaar warqadaha guryaha Yurub lagu soo daadiyo la leeyahay maxaa ay kula tahay xaafadda ka qaldan ama maxaad ku soo kordhin leed xaafadda oo fikrad ah waxaa laga yaabaa fikrad dahab iyo luula inuu ilaahay adiga kuu dhiibay laakiin cidi ku ogeyn wada hadalkaasna inaad kusoo tufto dabadeedna laga faa'iidaysto xagga ammaanka xagga dhaqaalaha xagga maaragtay safetyga dariiqa xagga waasacnaanta xaafadda dariiqyadeeda xagga nadaafadda xagga maaragtay biyo dhigeynka xaafadda xagga isbitaalada tareerinada la siiyo askarta iyo safetyga dadka maamulo oo dadka ogaado ilaahay baa wax oge dhalinyarta soo bixi doonto mustaqbalka iyo sida qalbiga loogu dhisi lahaa xanuunka dhimirka iyo sidii keer loo sii lahaa dadka aad iskugu sii dhexyaacay kuwa inta yar dareemayo distresskana in la yiraahdo ka faa'iideysa xilliga aqligaagu shaqeynayo way baby yar oo xanuunka dhimirka qabo sahal laguma arko waa 1 in a million diagnosekuba wuxuu bilowmaa da'da 10aad markuu ilmuhu qalqaali noqdo oo ilmanimo baby yar oo cayaara aan loogu garaabin ayuu noqdaa diagnosekaba wax muhiim oo loo baahan yahay marka ilmihii iskuulkii uu xasi lahayn gurigii xasi lahayn markaasaa xaggan Yurub iyo lala carraa oo loo geeyaa dhakhtarka xaafadda la yiraahdo ilmahan aad u iiga kulul yahay maxaan sameeyaa laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa 5 ciyaar hadday qalqaali kaata inay cidubaba dhehaynin ilmahan quraanna hala saaro hala waaniyo hala dejiyo hala hadla hala wareysto hala madadaaliyo halaga farxiyo dadkan kale sii kululeeya halaga leexiyo bal ilmahan intuunan nolosha isna qaraab noqon adna uunan ku gabin marka dadkan way is wareystaan marka serviceyadan Yurub isku garab ordaayo ee loo ogol yahay hay'ad walbaba inay hawsheeda qabsato ee raali la iskaga yahay waa aan ka wada ceeshino haddii waayeelka loogu talagalay haddii gabdhaha yaryar oo teenage-ka loogu talagalay haddii wiilasha loogu talagalay haddii loogu talagalay dib u dhisidda ama qurxinta xaafadda dhaqaale kobcinta eriyada ama magaalada ama townka ama xaafadda kolleyba dadka maskaxda wada tuujinayo saasaa isha loogu raadiyaa waa talent waa skill ilaahay uu dadka siiyey marka waxa aan ka sheekaysanayno halkaan aanu imaano kal iyo laab rabo inaan uga sheekaysano qof walbo haleelo khayr Allah idin siiye waa dadiyooga kala siday u dhaqmaan bal annaga ma u dhaqana oo annaga wax ma ka fahansanahay sida dadiyooga kale ay wax u fahansan yihiin marka annagoo fiirinayna dhaqankeena diinteena wacan khayr Allah na siiye dhamaanteena adduunyada kalena bal aan wixii fiican ka soo qaadano qaladaadka aan annaga aragnay mana lala arkay mana laga sitaa mase annaga ka dheereyna dadka qaladaadka ku badan so waxaaga adaa og dadkaagu hadday xanaaq badan yihiin hadday dood badan yihiin hadday dagaal badan yihiin waa aragtay cidu been kama sheegayso Soomaali inay dhiig islaamka daadiso cidu been kama sheegayso inay Soomaali heer isku ogolayn oo sartii la dhisay inay dumiyaan ay jecel yihiin maaha inay ku faanaan labadeeda indhoodan soo saaray beri hal iyo dhif daaro ay ka taagneed ardi sababo oonan dheerayn 12 sano ka hor tagay hal daar miya masal laba daar oo dheer oo wada dhalaan ay haysatay hal daar inay ahaydaan waliba jeclaa qaarna dhismaa ku socotay daartana sidii Yurub oo kale ayaa dhalo looga dhigay daarta caadi markii la dhiso ayaa daaqadaheedoo dhan dhalo laga dhigay sida Yurub ay u dhistaan daaraha camal hal inay ahaydaan jeclaa mid labaadna in lagu waday maxaa la yiraahdaa waxa lagu waday dhismo waxaan u tagay fasax hadda marka haddaad dhex marto magaalooyinka Afrika qaarkood daaraha dhaladaha aad arkaysaa marka qofka haddii la siiyo heer iyo dhaqaalo
iyo fikrad iyo farxad iyo kalsooni iyo aqooni wax walba oo ducadana loogu daro daaraha dhaladahu dhisan karaa maraakiib maasha allah intaa hoo tan oo konteenar qaado ayuu samaysan karaa qofkii macluumaadkuu baran karaa qofka markuu aqoon leeyahay ayuu ogyahay hantidaada oo ogyahay macdanta waddankaaga oo ogyahay cadadda xataa dhul ahaan aad adigu leedahay qofka aqoon leh unbaa wax fahmo marka qofka aqoonta le markaad dhaawacdo ood aqliga ka dhaawacdood kalsoonida ka dhaawacdood dhiiggiisa daadisood dhibaatayso waxaa isku soo haraa dadaan aqoon lahayn oo wax walba laga qaadan karo diinta laga daadi karo laga qaadan karo dadnimada laga daadi karo ama isqaawinaya ama faqsiga galaayo xoolo aan la soo bixi karin oon dhulka kala soo bixi karin wuxuu cuno ka yaaca waddankiisa oo ka tago micnaba waddankiisa ugu fadhinin diintiisii dadnimadiisa ugu fadhinin marka dadka waxay ku baaba'aan meelo kalaa laga soo galaa marka dadka kale inay dhismaayaan waddankooda ay ka fikiraan dantooda ay ka fikiraan ogow siday dadkooda u ilaashadaan baahida xanuunka dayaca diintoo laga dardaro ama khilaaf lagu furo ama buuq lagu furo ay uga hadlaan den annagana waa inaan uga hadalno waayo adigu haddaadan hadlin yaa waxaada kuu qabana hawsha gurigaaga shaqsi ahaantaada haddaadan hawshaada adiga qabsan yaa kuu qabana wax walba waa inaad adiga qabsataa sooma marka allaha nagu duwo wax khayr leh gabdhaha igu xiran khayr allaha siiye ee lagjarada weliba ka dhagaysto channelkeena maamuwaano iyo saaxiibada qaaliga maasha allah maasha allah maasha allah aan idiin dhaho waa dad wanaaga dadkooda la jecel waa dad duceysto dantoodana la jecel dadkoodana la jecel diintoodana la jecel allahana asturo wax kaloon sheegno ma naqaano allahana asturo aniga su-aashii cod ahaan lagu reebo bacdal salaan insha allah ee saan oo kale aan markaan akhristo ama aan soo dhagaysto aan dhehe aan u bogo waa inoo soo celina waana ka sheekaysanaynaa marka adiguna ogow dadku inay fikirayaan inay hadlayaan xataa adigoo haddaadan hadlin dadaa noo fikiraayo oo noo hadlaayo haddaan ani adigaba hadlin marka anigu dadka waxaan kala shaqeeyaa cabashada ay noloshooda ka cabanayaan u privateka ah hadday tahay caafimaad ahaantooda jirkooda dhiirigelin u rabaan iyo wixii u roono nafaqa oo dabiiciya iyo hadday tahay waxay dunida daafaheeda kala kulmeen lama soo xisaabi karo inta qof Soomaaliya joogto ama Afrika joogto ee diiqa dareentay cilado ka cawday ay cidu u garaabayna sida aniga dakhliga xaggiisa aad ayuu iiga hooseeyaa fursad aan ku shaqaysto ma helin inaan heli doonana allahu yaclam gacan ku haynaanahay kelmado dhawaq xumaha iga soo gaaro dhaqaale darro i haysata daraaddeed meelaan u kaca ma aqaano aad ayaan nolosha ugu diiqadaysanahay marka ilaahay iimaanka hana geliyo waa runtaa been maaha dadka Afrika joogo dhaqaalahooda wuu hooseeya badidooda dadkuna isma garab qabtaan wax soo saarkii dhammaay xataa waxaad muddaa in la diido haddii wax soo saar la arko in la dhaho heer baad gaaraysaa oon weliba geed lagula soo gaban madmadowga inaad heer adigu gaarayso waa la qari jiray maanta haddaad adiga heer rabto oon anigu ka xanaaqo oon ka yara masayroon shaydaan ila shaqeeyo waa isqari jiray waxaan dhihi jiray yaan lagu dareemin yaanan dib lagugu caayin xaasinimada iyo akhlaaq darrada kaa muuqato iyo nacaybka aad qofkaas heerka rabo ilaahay ha gaarsiiye ama ilaahay ha gaarsiiye aan dhahne aad mu muujinayso hadda geed laguma soo gabano adaan guursan maad rabtaa inaad guursatid anoo guursan maad rabtaa inaad guursatid ma dhacaydo oo anoo shaqaynay rabtaa inay shaqaysatee anoon dhoofinay rabtaa inay dhoofte anoon helinay rabtaa inay heshe aqli badana carar waatay horteeda heer ku gaartaa carar haddaanan kumanaan dad qashina kugu dalbanin oon dhulka lagula dhicin waaba saasoo cad marka allahna asturo ceebaa dhacday waa adduunyo waagii hore wax kasta oo la qaldo waa la qari jiray hadda wax kasta oo la qaldo waxaad buu u malaysaa tabeelo lagu faano oo dhadhadhadha hortaadaa lala taagan yahay marka allahna asturo arliga ilaahay waa isku mid qofkuu ilaahay qayraayo dalkiioo ilaahay ku qayri karaa qofkuu ilaahay qayraayana dibadoo ilaahay ku qayraa ilaahay qofkuu qayraa meel walbo arliga ilaahay kugu qayraa arligiisa marka haysdhihin Afrikaad joogtaa noloshaada heer ma gaari karta weligaa haysdhihin ama Soomaaliya joogtaa weligaa haysdhihin
yes dadkii dabeecadoodii way kaa tambadi kartaa biyo kaa badan iyo dad kaa badanba way ku qaadaan waxaa laga yaabaa dadkii inay kaa bataan dabadeedna cidna aynanba waxba kuu ogolayn dabeecado yaryaro waxaa iska jiro dadka laga ilaaliyo lacagta laga ilaaliyo aqoonta badan laga ilaaliyo dhexgalka dadka waayo annaga haddaan runtu isku sheegno fulexantiisa ma mooge soomaali dad yaroo iska macaano basiido waxaana haddii maanta lagu yiraa kaala gambada tuuro iska tuuranayo fashion waa timihii 4 xaba taagtaagaya haddii lagu yiraa sarwaalkan yar isku geeji adoo gabara dhag inaad isku taagtood dabada yareeda hooyada aabaha ee lehed halkaa la marti ilaa qofka suuradda waalidkiisa uu leeyahay ceebta dhacday iskumaba jeedidba jirkaan astur ilaahay asturoo ku yiri ama hooyada u eka ama aabaha u eko is astur allaheedaa ka allah madax yaroo bidaarto halkaa soo ifaysa hadday leedahay xataa ummadii la hortaaganta inay bidaaraysataba iskuma jeedo ceeb ilaa qofku isma arko wiisha waxaa la yidhi takarta saaran ma aragtee ta kale aragtaa ilaahuna astur marka gabdhaha fikradaha raba inay ila sheergareeyaan welcome waa ila sheergareyn kartiin nambarada hortiina yaalaad igula sheergareyn kartiin whatsapp ahaantiisa magacaaga meeshaad joogto iyo meeshaad fikradaada kasoo dhiibanayso insha allah halka aan fadhino waa dumarka Soomaaliyeed ii soo dhawaada noo soo dhawaada khayr farxad la soo dhawaada aniga waa Maamo Waano waxaan jeclahay ilaahay inuu noo saqiro dunidan dusheeda inta aan calaf u leenahay afkeena waxsan Allah ka keeno dhibaatada qof walba dhinacay ka saameysa waa imtixaan adduunyo الله نو فضوده الله نو سقره الله نحفظه آمين يا رب ضدي الدنيا يضل يدين به الله نو حفظه آمين يا رب وايد سلام هاي صار نقد كله وناكس وإنه يدير رجلين تكلهت إلهي رادو عفية حافظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.